laakiin waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay ku maamaahdaan nin wax dhalay waa dhuuntay ma dhimanin maanta markaad aragtid wiilkiisa curadka Maxamed Abshir iyo wiilkayga Cabdiraxmaan waa labada qof ee Zaaid aabahood ugu eg so as long as labadaas nool waxa dhigi kara Abshir waa naga dhuuntay ee naga ma dhimanin of course qalbiyadeena waa ku jiri doona inta nolosheena aan ka noolahay ilaahina waxaan ka baryayaa sidoo jeclaay inaan naqdo sidoo jeclaay inaan naqdo wuxuu jeclaa inuu qabto oo sameeyo aan ilaahi ka baryaa hada rajadii waa burburtay laakiin ilaahi waxaan ka baryaa biyom min ayaam inaan yani waqti dheer oo aad u tiro badan ayay qaadanaysaa inaan ka kabsado san soo sheegay zooj waa laga kabsan karaa oo nin haduu baxo nin kala imaanay laakiin waxa laga kabsanayni waxa weeyaan nin 24/7 heegan ku ah garabkaaga ee ku dhahayo wax walbood u baahan tahay niyeyso wad helaysaa ana isku ka korsaaray ka walwalin ka jiifo ani isku kay halay inaad aragtaan hodantii qoslaysa faraxsaneed ee quruxda badneed ee kalsoonidu ka muuqatay ee waqti badan ay qaadanaysaa inay soo laabato saayidin soo sheegana maanta waxa la mid ahay shimbir baal ka jaban yahay oo biibi kareyna ama se duuli kareysaad u fahantaanbo marka idinka waxa idinka rajeynayaa as ummadda Soomaaliyeed iyo walaalada Soomaaliyeed inaad garabkayga istaagtaan oo please adiga ilaalisaan commentiyada negative-ka ah sababtoo shalay markaan comment negative aan arko qofka koowaad uu sheegay asagoo wax yidhi jiray sasmaaliha waxaas karuga bax qof ka fiican adduunka ma joogo yani madoo yani kaamila ah uu ilaahay no laakiin qof walba qofkiisa uu wanaagsan marka waxa idinkaga baahanahay Soomaali Maxamed awal naagda nin ku tashanaysan aha oo nin baariya haysato u shaqeynaayo laakiin maanta waxaan ahay hooyo laba agooma ah haysato daawashadaas ay daawanaysan like taas saaraysan kulay idinka wax ma lacag ma idinkugu fadhido laakiin idin like at the same time agoomadaas ayaa laga korin doona 4 bilood kaliya kadib day waaba shaqeysan doona sa awalba hooyo u shaqeysanaysay awlaadeeda aan u ahay marka taasa kalifaysa inaan 4 bilood intaan shaqo banaan aan aadi lahaa ilmihii caring aan geel ama nursery sa u faantiin ilmihii inta la qaad waxa weeyaan in gaalo loo geeyo 8 saac soo shaqeynaayo laga soo wado bas kor ka soo because lesson gaari waa yaala waa haysanaa kii marxuunkuba ka tagay laakiin lessonkii qabiye iga marka xaaladii ayaa jiq isku ah soo waxa rajeynayaa inaadan hadalka xun adiga ilaalin doontii sababtoo ah يعني waxaan ahay qof dhabarka ka jabtay oo hadana dadaalaysa still oo rabtay inay istaagto ay noqoto hooyo wanaagsan ay noqoto hooyo iyo aabo ay noqoto maadaama aabaho jecel ilmaha in diin ay bartaan diin ilmaheedii barto say bari hadiiba ilaan lama waaraay adduunka waa iga hore waa ka daba iimaanaya hadii aan ka hormaro biyomnil ayaa meedahan ilaahu hooyada iyo aabahay una xariisa ya rabbi allah marka idinka arinka saasay xaalad u jirtaa Soomaalideyda Soomaali Maxamed iyo walaalada qaaliga ee channelkayga especially ku xiran soo waxa rajeynaa inaad ma aragtay aad garabkayga istaagi doontaan 4 bilood ee asayda aan wado agoomadana aad igu dhiirigelin doontaan inaan koriyo ilaahayna igu dhiirigeliyo idinkana waxa idinkaga rajeynaa jazaakumullahu khair inaad garabkayga istaagi doontaan waa rajeynaa bi idnillaahil kariim